What's up everyone, welcome back. I hope you all doing well. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay a week in the life a student living abroad. Yes, nolosha hal isbuuc arday ku nool qurbaha waa sidee. Laakiin before the intro video waxaan rabaa inaan ka hadlo labo qodob. First one wuxuu yahay sida ogtihiin channelkan muddo aad u fog ayaa ugu dambeysay in wax video aan soo geliyo. So sababo la xiriira mashquul, gaab, hakad iyo wixii la mid ah. Waxyaabihii sababtu ahaa inaan YouTube-kayga ka mashquulo ayaan ka hadli doonaa. Qodobka labaad wuxuu yahay inaan ku dhawaaqo inaan YouTube-kayga ku soo laabtay. Yes of course, I'm come back officially to the YouTube guys. Sidaas darteeda maadaama hadda YouTube si toos ah ugu soo laabtay, waxaan kaloo ka hadli doonaa waxyaabaha aan ugu talagalay inaan YouTube channelka aan ku soo gudbiyo. Marka intaan muuqaalkeena gudaha u galin, labadaas qodob ayaan isla fiirin doonaa maadaama gaab aad iyo aad u weyn oo soo dhex galay. Laakiin saaxiibow, intaan way dheertee ana exam aan leeyahay waan daahaya si xal ah, dhibaato ma lahan, xal waa jiraa. Qodobka koowaad halkan ayaan ugu hadli doonaa, qodobka labaadna markaa dibadda u baxo ayaan ka hadli doonaa. Balse marka hore u soo dhawaada muuqaalka. Qodobka koowaad wuxuu yahay sababta aan YouTube-kan u furay aan ugu maqnaa muddo intaas la eg. Waan baan xitaa inay dhaadeen niyo intaas dhan maxaa ku maqneed, shaqo tag ma tihid, bla bla bla, inactive baad ahayd. Soo sugsug marka waa ogahay anaa isku marqaad kacaa xitaa. Bas meesha ku qoran tahay last video waxaa soo upload gareeyay last year May 23. So it's been around like hadda a year and a half haddaan qaldaneyn. So intaas dhan waxay mashquuliyay runtii wax yar ma ahayn guys, laakiin waa idinka daba geeni doonaa. Marka muuqaalka ugu horreeyay channelka xitaa waxaa soo geliyaa u maleynaa 2 sano iyo bar. 3 sano hadda sii cagacagaynaysaa oo wax yar ka dhiman. So muuqaalkaas ka arki kartiinba waxaan kasoo tagayay dhulkii hooyo. Waxaan imid dhul aan dhulkayga ahayn, dad aan dadkayga ahayn, dad isku qabiil iska daayay, isku jinsi xitaa aanan ahayn, isku luqad aanan ahayn, isku kalar aanan ahayn. wax walba different day, isku dhaqan, everything wax walba different ka wada ku kala duwan tihiin. So maxaa ku qasbanaysaa marka xaaladaas aad soo gashay sida uu qabsan lahayd inaad bilowdid hadday tahay luqadooda inaad baratid, sababtoo ah wadan kasta waxaa la dhahaa furihiisa waa luqadiisa, haddii kale albaab kuu furmaayo ma lahan. Hadday tahay qaabka u dhaqman inaad baratid, qaabka u hadlaan markaa ku dhahay keliya maaha luqadda afka iskala hadlo, waxa soo hoosgalaayo body language-ka. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad wax isla baratiin oo meel isku raacdiin asxaabtaada, sometimes waxaa isla cuntiin, maybe inaad marmarka qaar isla xamaalatiin oo isla shaqaysatiin. So you have to marka qodobadaas inaad yara fahansan tahay si misunderstanding uunan kuugu dhicin. Adduunkani wadan kasta meesha ka doontid aad ka joogtid si aad ugu raaxaysato, aadan u dareemin caburnaan ama inaad keli ku taho kale qolaa iskaaga jirtid ama sagaashankiina qolkaa iskaaga xirnaad keligaaga isla sheekaysatid. Soomaalida qurbaha joogto stress ku dhaco iyo la dhahana runtii dadka noocaas oo kale ayay u badan yihiin maadaama inta badan qol keligooda ku jiraan oo meesha iskula sheekaystaan. Marka guys, iyadoo intaas ay jirto oo waqtiga iyo waxyaabahaas barashadooda la qabsigooda ay waqti ay qaadanayso, haddana mid kale sii jirto yara fani ah oo sheeko ahaan hadda idinkugu tuuranay asxaabteeda nagu dhacday. Asxaaba Soomaaliya kala soo baxno kale isku dhownahay. Marka xagga joogno wadankii waqtigu noo dheeraa, noo barakeysnaa, kaaliska arag wax badan maalinteena way dheereed, wax badan ku qabsan jirnay. Maalinta qurbaha saas u soo galnaybo waxaan dareennay waqtigii dhammaaba in barakada laga qaaday. oo saacadii iyo daqiiqadii iyo labadii saac meel u socod iyo meel ka socod aan fahmaynaba oo anaga jibil inaan qasmay waqtigiisu uu ordooyo leeyahay wallahi billah. marka qofka isdaba qabanin aan ku fikirin in mustaqbal iyo nolol future sugayso runtii aad u fogaanaa ma fahantiin, wax lagama qaban karo. sida guud nolosha qurbaha aad iskaga adagtaa ma fahantiin. qofka la soconin hooyo iyo aabbo waalid qofka weyn oo dhahay stop ya jooji waryaan ayaa stack up ayaa ma dhahay sorry ladies. I hope you get the point guys. waliba ilaahan ugu xafido. After all that stuff marka la soo tayo guys, dhanka kale waxay ka wadi jaamacadeeda oo ahayd hadafka aan u imid marka hore. iidan sharaf ma leh waxay ii jirtay tigid hal sano ah oo luqadda
aan jaamacadda ku dhigan lahaa inaan soo diyaariyo. But final alxamdulilah last year ayaan luuqadani ka graduate gareeyey. But warka hadaa soo koobo adi labadaas sano xifdin ugu dhaaftay waxaan ku mashquulsanaa just waa maraa jawiga la qabsanayay wadankii bulshada la dhaqankeeda luuqadii everything you know iyo mar aan luuqada jaamacadda ku dhigan lahaa aad diyaarinaya. Luuqada koowaad intaas ayaan ugu baxayaa. Wandaale markaas qodobkeena labaad wuxuu ahaa maadaama hadda youtube-ka si toos ah official aan ugu soo laabtay inaan idin ogeysiiyo waxyaabahan ugu talagalay inaan halkan kusoo gudbiyo. But actually hadda aad ayaan u daahayaa examna waa leeyahay so markaa dibadda buuxo ayaan ka hadli doonaa qodobkaas. So guys already wiigayga sidaan ayuu ku bilowdayba. Saaka xilli hore ayaan soo kacay aroortii kadib routiinkayga tacbaanka ahaa baan iska sameeyey kadib waa soo quraacday hore ayaan muuqaal ka galay soona waqti kale iiga lumin maadaama ku xisaabtamaa inaan sii baxo oo aan daaho just waqti waxaa ugu talagalay inaan introductionkaas aan sameeyo iyo ogeysiisidaas. Marka haddana yaanan sii daahin waqtiga waa socdaa runtii. Let's get ready and go to the uni. شارقة رياضيني نورمي بل كجوابي بلانتاني أتكذب كما بيهن بلانتان وذا قلي أوتيدي ليغو شاقينا هلي بيبي شارقة بنتينكي حمراته كما بينين إنا تاه قلنجو qalbigayga dhexdiise qolqoliye korna waana u qaaday kuma dhigin dulciraana kuman dhigin wandaneeya wixii adi ku daneeye farxad waaye hawa aan wada jabne garbahaagana waa saciid iyo xamde شاري شنيده عالو مالها عمريكو بربارته مقعنا واكا حدقتي حمر وايه ويقو شيقا ايضانكو هايستا نحدا يارنا ديل ديلها وملايمين وقتي باقالي ولد باسو بربارشه guys hadda waa soo baxay banaanka joogaa meesha baska laga raacayay qof asxaabna sugayaa isku sii lagu darsarabno. qofkaas sugaa waa imaad xir kadib waa baska xiraa ka dhiman kadib waa bixeenaa. hello hayseeta ii waran xaaladda maxaa haysaa jawiga waa ka waran xaaladda maxaa cusub jawiga maxaa khaldan maanta inaa wax waalan ku dhahaa rabay waa igu fahantay adoo su'aal soo wadaara waa inaan su'aalka kugu celiyo aaxan akhri maxaan aqoonsi waa ii jawaaboosaa leeyahay hadda intaan muqdir rabi waa iga qaladay hadafkii waa iga qaladay ma muqdir rabi asxaabta maxaan leedahay sabir videosa guys haya microphone السلام خلي الله وحده قال خلي الله إن نيسلان تحت يديدو سا وحشون وسا شيخط صدق أي خلق إن نيسلان تحت يديدو سا guys شيخط واي وخلدو سادة ولا دوه إن نيسلان تحت يديدو سا guys شيخط عاد وقفت أنا فانتين وحشون وسا مركها عد كده حتى عورة واي عورة سو قبلها سمانات أنا ديسان أهان لهاين واوري الله يعزك. Hi guys, waa imaada hadda meesha
22 galaaskayga raadinoyaa laakiin examka galayaa mobilka wax dhan lama ogolaha waa kana waa la fadhiistay galaaska gali doonaa guys waa soo daahay muuqaalo kale wax kale ma soo duuduubin waa ka xumahay marka galaaska galayaa mobil lama ogolo dhagahana ujeedin ma la ogolo saacad xitaa ma la ogolo so kheyr badan waa inuu marka examka kasoo baxo jeeraan libin caashiqa gaadho guudkayga ka tuure heryo guushiisa maruun haleelo inan gaabshaa ma fiicna haddan galab habeen ku goobay gurigiina gaaf wareegay imaduu iga gooboolaysay wima ii jaraabi weynay guys haweeney noqotay hadda laga soo wada bax ma fahanteen and it was very difficult wallahi sababtan waxaa waaye anaa labada maalin u dambeysay orday oo wax diyaariyey saas darteed oo igu adkaaday balse dhibaato ma lahan mid teeram le waaye finaalkaas la adkeyn doonaa runtii waqtigu sii socdaa haween ayay sii noqonaysaa energy-gan waa iga dhammaanayaa sidaas darteeda janis ama waqti fiican ah wax ku shubgaray xitaa ma helooyi meesha buuq waaye jam waaye sidaa dareemi kartiin so dhaywan inaan intaan kusoo afjaraa jeclaystay waa inuu day 2 iyo energy cusub iyo buuq kale ma fahanteen so see you guys day 2 haddana waa xilliga quraacda quraacahan waagi hore waxaa uu cun jiray oats and banana ama mashaari ama boorsh saa u taqaan laakiin midaan hadda bartay ama aad samaysan doono last 3 weeks aa bilaab waxay tahay anigu just horta sida u macdahayna hal maalin ma seereenin 3 isbuuc soo dhaafay wax kasta oo soo socda la soo sameeyo waxay tahay ama ka kooban tahay avocado toast with tomato eggs with some cucumber and last one guess what qiyas I know you already know heshay waxayna tahay banana moos kan meel noo haraa male ma fahantiin meel kastoo ku jira aakhir xitaa loo qaadana astaghfirullah ilo yaa afad aakhir markaan leeyahay guys ani waa waalnahay marmarka qaar aftag meel khaldan oo la galaa out of box caadi aan noqonaa ma fahantiin marka i celiya ay qabto insha Allah haddana waa diyaarin doonaa so let's do it ugu dambeyntii waa sameeyey sida ujeedinay waa quraac yar oo aad u fudud simple ah waqti badan kaagama baxaayo you should try it meesha adigana maalin and the good news is adduunka meel kasta ka joogtid waxyaabaha ay ka kooban tahay waad helaysaa all simple way by the way waxaa ku cabo kafee samaysaas dhahaye laakiinse kafeesaha kale caawi igama haasa marka waxaa samaysan doonaa matcha isla aragni sida u samayn doona
guys I'm ready hadda xaafadda ka baxaya aadaan u sii daahaya runtii inaan wax ka duubo xitaa ma ka gaarin by the way kalarkan hala yaabina it's normal it's part of style so diintan wax ma ka dhihin ma fahanteen diinta marka wax timaalay marii laga hadlayay hal meel bisa loo hadlo marka madowga la reebay so wixii kasoo horbeebnayeen Soomaa right so kan wax madow wax kasoo hor wala mid yahay jaala cagaar guduud bisali whatever you want laakiin Soomaali haddaan ahay kalar dhaqan muulihin sidaas darteed marka ku warkaan kale out of books ku maleynaa in fahantiin waxay sameeyeen oo kale so just normal way it's part of style so normal caadi loo arka tamam wax weyn ka soo qaadin ay la yaabeen I'm out baska ayaa ku wajahanahay sida caadiga ah in jaamacad Tariina ku aadaa metro laakiin stationka xoogaa iga fog ma fahantiin buura kuruya sidaas darteed basina xoogaa u qaato waagi horena bas ma u qaadi jirin scooterka ku tagi jiray ma fahantiin laakiin scooterka hadda lugaa iga banjartay sidaas darteed waxaa ku qasbanaa inaa bas qaato oo ma hadli kari xitaa buurtaa kuruya arka هسا الحمد لله thanks for shalay good bisinto anaga maadada koowaadtan oo fiisigiska adkeed laakiin turkishka ku soo raaxaysto fasalkana u soo warbixita turkish baa ku soo raaxaysanayna ana horta 3 daqiiqo uu soo kicin maayo ardayda ajaanibta kala dhan ku fahmi waayeen aan xoogaa marka maadaama joogo saas ay u fududaato marka adoo iskool soo dhamayska waran inta sabab horta cimiladan waa la yaab wallahi marka ani wax in aduu u talgalay igu xumaysaa maalmahan dhan qoraxda jirtay waa kana car aha qurux badnaata maanta waa kan qabowgi iyo roobki iyo muxuu ahaa cadceed iyo cirki oo xirxirnaa wixii dhan isku kala darsame anyway dib ma lahan igama joojinayso inaan wax duubo oo duuba wax kasto dhaco soor dulaale soor Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Hey guys examka waa soo dhamaaday marka baar qurux badan ay imaaday si moodkii iyo jawigii wixii soo qaldamo loo sax ma fahanteen so hadda inta joognaa marka xoogaha joogi doonaa waxa kale oo rabaa xitaa qodobka labaad ashalay idin dhahay marka dibadda u baxaa ka hadli doonaa oo marka shala aad deehayo kale
marka qodobkaas labaad inaan ka hadla isku dayaa haddii noqon weysana waa kaas ay noqon weysay marka guys stay tuned. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to insane your soul. We are heroes tonight. We will fly above the asxaabta haddana waxaa u soconaa dukaan yar oo halkan ah oo bashkanta market la dhaho dukaanka caasimada banaanka dhaxana soo dhacday winterka yaa maalmo yar kaartin faanteen marka meeshaan qashin yar ka gadanayna saas ku kululeyno walaa winterka waa imaada ku dheebis waa in la kala dhuumo maalmo kadib waa la kala dhuumanaa disciidas arkays male marka meeshaan lacagta yaa bixinoonaa kadib macmacaankan yariiska quruxda badan meesha yaa lindhaha ka cunooyaa wallaahi laakiin ma gadanin kafeeyaa sugayaa kafeegan oo imaada kadib waa iska soo bixinaa meeshaan sokor waxaa kasoo qaadanaynaa sacab bariis oo kale xaasidnimo suuxiya kuwo kale biim la dhaho dukaanka oo kale xabad sokor bisna soo siiyeen baqiilnimo heeray ka gaareen ciil anagana soomaalina sokorta meeshaan ka jarnaa ku reex xaasidnimada u qabnay kadib meeshaan iska freestaas dhaheynay shimbirahan codkood ku raaxaysta laakiin kuraasta iskuulka soo fadhina dawadana soo kagta ma fahanteen kadib waxaa dhahay nabad yaaq muxuu ahaa baarkiga cooskiisa iska friisanaynaye kadib saaxiibtiina way dood ma fahanteen waxay dhahday anima ku jiri muxuu ahaa qoyaan waayey roob waaye camal kadib waxaa dhahay isdeji adii ciyaal xamaraan nahay iska waaleeno jaakadayna dhiganayna waxaas ma u joojinayna camal ma fahantaade easy busy lemon squeezy english talyaanina waa kula hadlay kadib adii waa la qanciyey ugu dambeyn meeshaas ka fadhiisanay wuxuu ahaa hadda intaa xoogaayo isku kululeynaynaa kadib maxaa tagaynaa muxuu ahaa meel bookshop ah oo waraaqada laga daawacdo kadibna wuxuu ahaa xaafada toos u aadayna isla socod wanaagsan insha allah. طويل الشوق يبقى في اغترابي تطير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين مصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو So guys, day 2 aad u dheeraad ma fahanteen haddana waxaa imaanay maktabad bookshop ah so halkan waraaqado yar ka baxsanaynaa kadib xaafada toos u aadaynaa insha allah. Guys hadda ka soo dhamaanay meesha marka xaafada aadi doonaa isku darsan doonaa xaafadii fogtaa wallahi aad oh shit wuuna dhaafay marka tareenka xiga within next 5 minutes oo imaana dhib ma lahan kaas raacayna laakiin intuu maqan yahay Jansa uu arkaabo kaal soo dhawaad waxaa rabaa inaan sheegay sa u jeedinba muuqaalka buusa ku qabtay marwina iga mashquushin ama muuqaal video iyo wax kale inaan ku mashquushin marwi inay dhageysatiin rabaa waxaa rabaa inaan sheegay kaal soo dhawaad dhageeyni si indhiini ama hay ma fahanteen laakiin si focuskiina ii saaraysiin ma ii jeedin baa wax okay ana xal haayo maqli jirteen hebel cirku ka soo dhacay kaasoo bii ismarinin ani waa hadda cirka ka soo dhacaa wait a second wow siba dhaantaa la yiri hay ka warama bal sidaan sida hore soo sidaan kama wacna okay hadda waa ii jeedin sax okay dhageeni ama hiya focuskiina isiya listen to me well waxaa rabaa inaan sheego waxaas waxay taas u jeedinba muuqaalka uu dheeraaday intaas mid uu talgal maaha shileed ma fahanteen wallahi ana xitaa waa gadaala ku xumaad muuqaalo badan aduu qaar badan ka tanaasul aad dilid garay editing aanan ku soo darin anoo duubistooda waqti energy gal hadana editing ma ku soo darin waa dileed ma fahanteen si muuqaalku soo koob male intaana yaa alla ku soo koob wallahi qaala badan aduu kumanaan muuqaal aduu yaaqay wiigi bismillaah dadka asxaabtada 2 sano ka maqantaa ma iga ahayd qanci ma iga ahayd waa fahmi waa muuqaal badan aduu dhan waa isku wareer ma fahanteen marka waxaa daawateen ilaa hadana waa day 1 iyo day 2 sida ogtiin waxaa duween waa week in the life weekin wuxuu ka kooban yahay waa 5 maalin so waliba ilaa hadda day 2 la daawateen
marka saddexdaas maalin kale waa duuban tahay laakiin editingkan muuqaalkan socdo ma kusoo dari kari ma fahanteen sababta muuqaalka zaid usii dheeraanaya it's too long uu noqonaya wax zaid u dheerne ani ma jecli aan hadda iska soo qaada ahaanteed youtube marka ku arko muuqaal dheer ma daawado runtii waxaa geliya draftiga lama laaga saartaa waxaa dhahaa marka waqti usoo hela daawanaya ma fahanteen waa iska boboojeeyaa so maxaa diida dad badan oo ani ila mid ah oo muuqaalada dheer aad jecleen oo ka helin inay jiraan of course way jiraan qasab so waa in idinka fikiraa saan iskaga fikiraayo kale muuqaal dheer youtube-ka aan usoo gelinin mana jeclina soo gelin doono mana dhacaysa hadda kadib insha allah so muuqaalkan shilay ahayd muuqaalo badan anoo duula is ark ma fahanteen asxaabtaada qanciyaga ahayd maadaama 2 sano ka maqneed marka hadda saddexdaas maalin part 2 waa u bixin doonaa day 3 day 4 day 5 markaa edit gareeyo part 2 waa u bixinaa isla habeenka ku xuga soo gelinaa ma fahanteen so muuqaalkan haddaad daawanaysid subscribe saar youtube channelka isla habeenka ku xuga soo kugu soo dhaco isla habeenka ku xuga waa soo gelin doonaa haddaa muuqaalkan bilooyin kadib ama maalmo kadib daawanaysidna isla muuqaalkan aad daawanaysid hoostiisa descriptionka soo dhigi doonaa meeshaas linkii ku dhufo waa arkaysaa part 2 week in the life meesha ku qoran tahay marka subscribe ta ilaaga in aan sheegay xitaa ma fahanteen waa u jeedin muuqaalka waqtiga soo galay way ka muuqataa inaa sheega ama inaa meel kusoo qoro xitaa muu baahan inuu waqti iyo juhdi iyo qarash soo gala ma fahanteen muuqaalka sheegaya muuqaalka asaa hadlooyo xitaa waa u jeediin marka waxyaabihi oo liska ogaa in nalii sheega ma haddii kale ani idinka dagaal waa ma fahanteen walaa dagaal waa walaa feer subscribe ku saaraysiin jilib iyo xusulne like iyo share ku samaynaysiin ma fahanteen marka waa kaas saas isku ogna asxaabi inaan ku dhaafin part 2 ah iloobin subscribe na saaratid saddexdaas maalin runtii waxaa sameynayaan hadda xayeysiin yar usii sameeyo ama introduction hadda day 3 oo kale meel jawi deganaa tagaya waxaa ka hadlaya qodobkii labaad aan idhahay labada maalin lasoo dhaaf dhan waa ka hadlaa oo ahaa waxyaabaha youtube channelka kusoo gudbin doono maadaama youtube-kiina hadda si toos oo official usoo laabanay fasax maadaama ahay saas ugu faa'iideysanaa labada maalin lasoo dhaafaya mashquul waxbarasho oo ay mashquulisoo ujeedeen halka day 4na aan safar gali doono magaalo kale aan tagi doono halka day 5na iyadana ku daawan doontaan magaaladaas buurta ugu sareysa anagoo koreyno kadibna magaalada in meeshaas ka daawanayna ma fahanteen kadibna buurtaas taariikh yaroo kooban oo buurtaas ah dadka dhisay waxaas anaa idinkaaga dhici doono insha allah so marka part 2 aad u xiiso badan tahay is amazing incredible way marka yaan ku dhaafin hadda hidda like button and subscribe haddana booska idinka bixinayaa waa bixi kartiin yalla sagaashanka waxa la akhrinay qoftaan wax akhrin dhan inacsiisi marka saxaabi saani sheeg waaye saasaas ku ognahay haddana waxaa idinkaaga tagayaa see you next one part 2 ayaa inoo balan ah god bless you peace and love at the end hal mar idin xasuusina si muuqaalka part 2 uunan ku dhaafin hit the like button hadda si muuqaalka diriskaaga u sii gaaro like haddaa saartid diriskaaga muuqaalka sii gaara and subscribe it bye bye قلب حبيب وقوي وريقي نقع فريقي يمضوي قوبو ليسي ما يجرى